السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muuqaalkeena wuxuu ku saabsan yahay maanta qisadeena aynu wada wiil iyo aabi ayaa wiilkiisa ka sheekay taadaba sabab sidoo ka jira way waxay hordheymay hadaad ku cusubtaa subscribe bad saaraysaa hadii hore nolol joogtana inta leerka ku qabatid aad saarteen muuqaalka siiro habi ugu soo dhawow nala daawo muuqaalka kuna soo dhawaada daawasho habboon. وهرنت تاريخ nololeedkii wiilkeer ee qisadan ku saabsan hadda dib u eegno wiilkeer waxa soo korisay hooyadii muddo wuxuu ku noolaa wadanka Masar gaar ahaan magaalada Scandinavia tuulooyinkooda ku noolaa hooyadii ayaa soo korisay muddo markii hooyadii ay soo korisay hooyadii ayaa geeriyootay kadib markii hooyadii geeriyootay 40 cisho markii laga soo wareeday janaasadii hooyadii ayaa aabiyuu gursaday gabadh garooba ayaa aabiyuu gursaday oo carmaga hore loo soo furay gabadhaas waxay haysatay laba wiil oo nin hore u dhashay gabadha waxa la oran jiray Samirita waxay qaaday wiilkeer kafaaladiisa ayay qaaday kadib wiilkeera habdhaqan wanaagsan ayay ku soo korisay wiilkeera waxbarasho ayuu galay heer dugsiga sare isla maalintiiba oo meel waxaan ka gaadhay heer wiilkeera naftiisa u sheekayba hadii hooyadaadii ku dhashay noolaan lahaydba sideen malaasi ka qurux badan kuma soo korin lahayn adugu cala kulli xaal waxay u soo korisay heer akhlaaqtii ugu dambeysay way soo korisay way ubadkeedii ubadkeedu u simnaayeen wayna waxay kaba soo qaaday iyadoo dhashayba muddo markuu dugsiga sare u dhameeyay jaamacad ayuu galay jaamacadaasna waxay ku taalay magaalada Scandinavia ay ku taalay jaamacadda markuu wiilkeera galay wiilkeera gurigiisa ka noolaa aabina wuxuu ka shaqayn jiray dawladda ayuu shaqayn jiray subaxii ayuu guriga ka bixi jiray ilaa duhurka cabaara 12 kana guriga ku soo noqon jiray muddo hadaba markii 9 sanadood laga soo wareeday wiilkeera muu ilaabay habdhaqankii wanaagsanaa ee ay kula soo dhaqantay gabadha waa biyo guursaday balse imka dhibku wuxuu ka yimi aabihii wiilkeer aabihii ayaa isla ilaa maalintii guursaday ilaa maanta wiilkeera dabeecado qallafsan kula soo baxay bal dabeecadaas maxay wiilkeera ayuu isku dayay markastoo uu arko inuu u dhow yahay xaaskiisa markastoo u dhow yahay wiilkeera ayuu wiilkeera ka shakiyay soo wiilkeera waxba weydin ayuu inta u yeedhay oran kareemeyna wiil oo nin 20 jir ah hal iyo jeeraade dalkaas galbeedka qofka 20 jirka bay dhaan wiil intuu yeedhay buu kitaab quraan gacanta u saaray kadib markii uu saaray ayuu dhaariyay wuxuu ku dhaariyay inaanu khiyaamin inaanu xaaskiisa aanun ildooniseed ku yeedin inaanu xaaskiisa aanu ku arki karin mar dambe oday shikiba dulmarayba gabigiisaba oday waxa saaqday leer shiki iyo hinaasa ay ka buuxaan wiilkeera uu yaabay haye ayuu ku yiri waa ka dhaxbahay waana ka gaabsaday haduu jara markuu yeedho inuu tago hadaba muddo kadib haddana ku soo noqday ilaa wanin aan shikisan oo shiki dulmaray wiilkeera ayuu haddana u yeedhay haddana u dhaariyay wiilkeera haddana mar labaad buu ku soo noqday wuxuu markan ku dhaariyay inaanu xaaskiisa ka fikirin inaanu xaaskiisa ildooniseedkooda inaanu xaaskiisa aanu ka wareedin haye buu ku yiri wiilkeera haye aabe amarkaaga jir anuu xaaskaaga hooyadaya oo kale ku yiri anuu wax dareen aan u hayo ma jirto wax doonis aan u hayo ma jirto waana hooyadaya oo kale diiwaanada hooyadii oo kale waa isla weyn balse odayba dhan kale ka shakisan muddo kadib waxa soo gashay bishii Ramadaan ee kariimkeeda khayrka qabtay bishii Ramadaan hal jaraado waxbarashooyinku waa fasax wiilkeera guriga ku nagaaday gurigiisa joogay inta badan waxa dhacday hadaba odayada markan uu ka sii darayba wuxuu sameeyay maadaama uu arkay in guriga 24 saacadood wiilkeera guriga ku jiro isna shaqada subaxii aado xaaskiisa ayuu albaabka dushiisa ku fuli jiray ku sii xidhi kadib shaqada markuu aado soo noqdo dana ka fuli muddo caynka waday muddo kadib wixii shakiisiba soo taro
wuxuu imika istusayba waxyaalo aanan jirinba. wiilkii yaraa ayuu ku yidhi. mar wuxuu ku tuhmay inuu xaaskiisa aanun gacantu qabsaday. haddana aaba gacanta ka qabsaday. mar kale wuxuu ku tuhmay inuu shumiyey xaaskiisa, iyadoo haddana ay jirto xaaskiisa inaanay ahayd gabadh weyn oo wiilkii yaraa hooyadiisii dhimatay leekeed, qurux la sheedana aanan lahayn. ayuu haddana odayu wiilkiisii yaraa ka shakiyey. wiilkiisii yaraa shaki Cabdulmalik. wiilkii yaraa nasiib darro umuu sheegin xaaska uu odayana aabiyuu qabo, balse isagu iska aamusay. balse isagu u aamuso howshu waxay ka dhexaysaa isaga iyo aabiyey. afkiisu juuqduu gabayba, waxba muu sheegin. wuxuu isu dayin inuu ka ag fogaado gabadhan looga shakisan yahay oo aabiyey qabo. muddo kadib aabiyey xaaladiisii way ay ka sii dartayba. wuxuu u gaadhay heer markuu guriga ka sii baxayaba inuu isagu gacantaysii qabto oo sii kaxeeyo, hore ka sii kaxeeyo, guriga ku aamini waayaba inankii yaraa. ilaa 9 subaxnimo markuu shaqada aadayo horuu sii kaxayn jiray, wuxuuna ku odhan jiray ilaa laga gaadhayo 1 duhurnimo waqtiga ilaa qadada inaan guriga ku arkan adigoo ka hor haddaan ku arko wixii dhaxaanu shaqa ku mali. hayeeb ugu yidhi aabe, isna waa aabihii waxba hadal kuma culi. habeenkiina 7 fiidnimo ayuu guriga ka saari jiray, wuxuuna ku odhan jiray waxaad soo gashaa 9 fiidnimo markuu isagu guriga ku soo noqonay. haddaba wuxuu ku hayay kadeeb iyo baadhitaan aanan dhammaadba lahayn. muddo markii intaa ku waday, gabadh shaqaalaha oo guriga ka shaqayn jirtay ayuu ku yidhi, xaaskayga haddaad aragtid iyadoo guriga ka baxas ee guriga dabadiisa u baxas ila soo socsii, siday tahayna ila soo socsii. walow ay macaldan ka yeelato dabadda ila soo socsii habeen iyo maalinba. hayeba ku tiri markuu xaaladdu halkaa ay maraysay. haddaba wiilkii yaraa uu ismooganaysiiyey dhibaatooyinkan iyo waxaan dhacay. jaamacaddiisa ayuu isaga sii watay. jaamacadduu aadi jiray magaalada Istanbul ka dhigan jiray. xaafadduna waxay ku taalay magaalada Istanbul tuuladeeda ayay ku taalay. halkaasuu ka soo noqon jiray markuu waxbarashadu soo dhigto soo noqon. jaamacaddan wuxuu ku jiraa sanadkii 2 waxa uu hadhay 2 sano kale. markuu soo noqdona jaamacadda ka soo noqdo guriga toos u iman jiray. maalin maalmaha ka mid ah wiilkii yaraa waxa uu ku arkay gabagal ilaa nin dabagal lagu hayay. kii wiilkii yaraa u moogansanaa wuxuu si kadiisa oo ishiisa u qabatay oday wiilkii yaraa sii gelaya kitchada ama kitchen oo cunto ka soo qaadanay. kitchadana waxaa ku jirtay gabadhii oo qaybay odaygu, naagtii odaygu qabay. kadib odayba wiilka ka soo daba socday. markuu arkay wiilka oo kitchada ku jira ayuu intuu soo qabtay kalarka oo ku yidhi, maxaad ka eedaysay isheeda, maxaad ka eedaysay jirkeeda, maxaad u eedaysay, maxaad ka soo adoontay, maxay tahay sababta aad ugu soo dhawaatayba. maalintaas haddaba ceybtii fashilmantay. islaantiina ee daraantii yuu soo dhawaad adiga waan ogahay inuu wiilkanu adiga uu xidhiir hoose iga dhexeeyo. islaantiiba ceeb ayay afka qabsatay. ceebay tacaal way yaabtay islaantu. sidii wiilkan anuu xidhiir ka dhexayn karaa, waaba wiilasheedu lama waaba dhali karaa. way u qaadan weyday, way ka dhaadhicin kari weyday. wiilkan anuu xidhiir gama dhexeeyo, booskii hooyadii baan ugu jiraa. waayba ka dhaadhicin weyday. ilaa waa nin meel kale ku maqanay oo shaki baa ku soo ururay oday. haddaba maalintaasuu go'aan ku gaadhay wiilkii yaraa inuu guriga isaga tago. uu isaga tegay gurigii, uu isaga safray. islaantiina yaabanayd. oday inuu madaxaas qabtay oo wali ku dhawaaday, yidhi islaantii ku qayliyey xidhiir hoosaad buu iga dhexeeye. waana arkayay maalmahan baynu sidaa kugu meeraysana adna aad u yeedhaysid. iyadna waxay ku tiri kalkacayl iyo wanaag hooyanimaan u hayay, wax kale balse nagumuu dhexayn. wiilka yar booskii hooyadii ayaan ugu jira maadaama hooyadii ay dhimatay. balse qisadanu waxba muuqaalka sii dheeraymayno. qisadanu halkaasi ku gabowday, halkaasina ku dhammaatay. haddaba qisadan ugu horreyn cibro qaadashada aad ka qaadatay komitida hoosena uga wadaagaysa fikirkaaga. adiga hadda fikirkaaga daawaday. ta kalena waxa weeye qisadan cibro qaadashadeedu waxa weeye
qof kastoo mushakiya hada qof kastoo mushakiya ama wiil ahaado ama gabadh ahaado waxaa jirta wiilal inta shaki hinaasu caadiba qofka uu hinaasi karaa markuu xaaskiisa arko nin garabka hayste balse waxaa jira wiilal ana guriyooda ana ka dhamaanba mushakiya oo hinaasa oo xaaskaada lagu daba maraya waxaasi ka buuxaan taasuna way jirtaa balse qof kastoo mushakiya bay caashikiya sidaan leeyahay qof horna waxaan oran karnaa odaygaasu wuxuu ahaa oday waayeel ah kadibna dareenkii dhalaannimo iyo yaraantiisii iska waayay kadibna dareenkii raganimo markuu iska waayay inankiisa ka shakiyay iska yiri inankaaga ku daba maray xaaskaaga markuu dareenkii raganimo iska waayay baan oran karnaa daba qisadaas halkaas ku soo gabagabowday qisadaasuna waa horey dhacday daba wixii cibra qaadasho ka qaadatay committee ugu reebisa inta muuqaalka xida aan isugu imanano waxaan iga tagayaa amaano Allah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.